quraanku wuxuu leeyahay ku dheh gabdhaha mu'minaadka ah marka ay banaanka u baxayaan ha xirtaan jilbaabkooda waa jilbaabka arintaas waxay ka yeelaysaa in la garto dibkana way ka ilaalinaysaa tusaale ahaan haddii ay jiraan laba gabdhood oo walaalo ah haddana mataana ah aadna u quruxdana ka siman haddii ay soconayaan labadaas gabdhood wadadaas weyn ee Dubai laga yaabo inay tahay Jumeirah mid kamid ah labadaas gabdhood waxay xiran tahay jilbaabka islaamiga ah jirkeedo idil uu daboolan yahay laga soo reebo wajiga iyo labada calaacalood mid kalena waxay xiran tahay dharka reer galbeedka cabaayad yar oo gaaban qoorteedana waa ay banaan tahay sidoo kale oo ay labadooduba wadada soconayaan yaani wadada Jumeirah isla halkaasina ay joogan kuwa gabdhaha fowdeeya waxaan idin weydiinayaa su'aal gabadhee bay fowdeynayaan ma mid xiran xijaabka islaamiga ah ee asturan mise gabadha xiran dharka reer galbeedka ee gaagaaban gabadhee bay fowdeyn doonaan waa gabadhee dabcan waa mid xiran dharka gaagaaban ee aan asturnayn quraanku si cad buu u sheegayaa xijaabka in lagu waajibiyay gabdhaha si uu dhibka uga ilaaliyo in la faduuliyo ama la fowdeeyo inta kadibna shariicada islaamku waxay oranaysaa hadii nin uu isku dayo inuu kufsado gabadhkiisu waa in la dilaa midaan muslim ahayn baa oran doona oo macaqabka dilka casriga cilmiga iyo tiknoolajiyada islaamku waa diin dambaysa waa hab nolol oo aan naxariis lahayn waanu jawaabayaa waxaan ku leeyahay ka soo qaad ilaahay ma qadaree qof uun ayaa kufsaday hooyadaada ama qof ayaa kufsaday walaasha kii wax kufsaday ayaa hortaada soo maray waa maxay cuquubada aad ku fulinayso boqolkiiba boqol iyaga kamida waxay dhaheen ciqaabtiisu waa dil haddii hooyada la kufsado tahay hooyadiis wuxuu dalbanayaa in la dilo qofkii kufsaday haddii hooyada la kufsado tahay hooyo qof kalena wuxuu leeyahay dilku waa xadgudub waa maxay laba wajiilnimadaas